waa galab axad ah bisha agosto ee sanadka 2023 waa 6. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada bari waa 4tii galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaano ka hadlay xarigga sii socda ee wariye Bishaaro Baanday oo ku xiran magaalada Hargeysa. war mas'uuliyad baa dalkan inaga saaran baan golaha anigu ka dhaxli mas'uuliyadeedu waxay tahay qof kasto muwaadin oo xuriyadda laga qaado cid u dulman yahay oo u dabran yahay waa xeerka qaabta iyo xeerasha gaboobay ee maxkamadaha dhex yaala ee Ingiriiska laga soo xigtay ee aan noloshana la falgeli karin meel Soomaaliland xeerka qaabta ay kaga taaliyo dawladnimadeeda ma jirto. waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda xilligan ee maamul goboleedka Puntland. waxaan aaminsanahay in muxuu ahaayay dawladda iyo cid kastoo ka aragti duwan ay wada fariistaan in muxuu ahaayay dulqaad badan la muujiyo in muxuu ahaayay cabashada laftirkeeda midda dhow iyo midda dheerba muxuu ahaayay laga jawaabo. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 30 muhaajiriin ah ayaa la la'yahay kadib markii 2 doon oo ay la socdeen ay ku degeen jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga sida laga soo xigtay dad shilkaasi ka badbaaday sidaasina waxaa axadda maanta ah sheegtay hay'adda socdaalka ee qaramada midoobay. ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa maanta sheegay inay heleen meydadka 2 qof ayna badbaadiyeen 57 qof iyadoo ugu yaraan 30 qofna la la'yahay. wakaaladda wararka Talyaaniga ee ANSA oo soo xiganaysa dadka lasoo badbaadiyay ayaa warisay in doomaha oo khamiistii ka soo shiraacday magaalada Sfax ee dalka Tunisia ay sabtidii ku degeen iyagoo ku sii jeeda Yurub. doonta koowaad waxaa saarnaa 48 qof iyadoo tan kalena ay la socdeen 42 qof sida ay ANSA warisay, iyadoo intaa ku dartay in ciidamada ilaaladu ay meel 46 kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan Lampedusa ay dad ka soo badbaadiyeen ayna heleen meydka 2 qof oo kala ahaa haweeney ka soo jeeda dalka Ivory Coast iyo cunugeeda oo 1 sano jir ahaa. baaritaanka la xiriira shilka 2 doon ayaa ka bilowday magaalada Agrigento oo ku taala jasiiradda Sicily ee u dhow Lampedusa. taliyaha bilayska ee magaaladaasi ayaa waxa uu sheegay in kuwa wax tahriibiya ay ogaayeen in baddu ay kacsanayd, waxaana uu cid walba oo ogolaatay in muhaajiriintu ay safarkan galaan amaba ku qasabtay ku tilmaamay dambiilayaal aan damiir lahayn. diyaarad drone ah oo Turkigu leeyahay ayaa hadda maanta ah waxay beegsatay magaalada Suleymaniya ee gobolka waqooyiga ee Ciraaq, halkaasi oo ay ku dishay sarkaal ka tirsan xisbiga Kurdiyiinta PKK iyadoo duqeyntaasina lagu dhaawacay sarkaal kale sida ay sheegeen ilawareed ka tirsan hay'adaha ammaanka ee Kurdiyiinta Ciraaq. duqeynta ayaa lagu beegsaday saldhig kooxda PKK ay ku leedahay magaalada Jamjamaal oo galbeedka ka xigta magaalada Suleymaniya sida uu sarkaal amni oo ay ka soo xigatay wakaaladda wararka AFP. Turkiga ayaa muddaba Ciraaq ka waday olole dagaal oo ka dhana kooxda PKK oo Ankara ay u aqoonsan tahay mid argagixiso ah. Turkiga ayaa si joogto ah duqeymaha dhanka cirka ah uga fuliya waqooyiga Ciraaq oo muddo dheer ka maqan gacanta dowladda dhexe ee Baghdad, waxaana uu u diray ciidamo kumaandoos ah oo taageera gulufka uu halkaasi ka wado. ugu dambeynna Mareykanka ayaa cambaareeyay uguna yeeray ficil argagixisinimo ah dilkii koox Yuhuud ah ay u geysteen nin Falastiini ah, iyadoo luqadan oo aan looga baran Mareykanka ay muujinayso sida uu uga xun yahay rabshadaha sii xoogeysanaya ee ka socda daanta galbeed ee dhulka la haysto. waxaan si adag u cambaareynaa weerarkii argagixisinimada ee shalay ay geysatay koox xag jir ah oo Israa'iiliyiin ah oo laga deegaameeyay aaggaasi, kuwaasi oo ay ku dileen wiil 19 jir Falastiini ah ayay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku ku tiri bayaan ay soo saartay gelinkii dambe ee Sabtidii, kaasi oo ku buuriyey isla xisaabtan iyo cadaalad. 2 qof oo Israa'iiliyiin ah waa Israa'iiliyiinta degay aaggaasi ayaa loo xiray dilka, iyadoo 5 kalena
loona xiray inay xiriir la lahaayeen falkaasi lagu dilay wiilka falastiiniga oo dilkiisu ka dhacay daanta galbeed sida ay booliisku sheegeen sabtidii. shaqsiga dilka lagu tuhmayo oo la aaminsan yahay inuu rasaasta furay ayaa ku jira cisbitaal kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray isku dhaca labada dhinac. labada eedeysane ayaa degan dhulka sida sharci darrada ah lagu deegaameeyey ee Migron oo ku yaala daanta galbeed ee dhulka la haysto ee Falastiin. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan mar kale. aynu ku horeynaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galmudug xilli dowladdu ay sheegtay in la sii amba qaadayo howlgallada militari ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. warbixintan waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb halkaas oo la sheegay in madaxweynuhu uu fariisin ka dhigan doono inta uu socdo dagaal lagu wado in ururka Al-Shabaab looga saaro meelaha ay kaga sugan yihiin maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug. haddaba tigitaanka madaxweynaha ee magaalada Dhuusamareeb muxuu ku soo kordhin karaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee la filayo inuu dhowaan halkaasi ka bilowdo? waa kan Korneel Cabdulaahi Cali Macow oo horey uga tirsanaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya. xasan waxa waaye madaxweynaha tegitaanka meesha uu tegay iyo abaabulkan dagaal ee socdo oo damaca uu yahay in galhareeri iyo ceelbuur lagu qabto waxa waaye waa meesha isku aruursadeen shabaabka oo cadowga aad u degan yahay. laakiinse waxaa isweydiin mudan ciidanka intaas cudurdiisa ay la eg tahay diyaaradahana ay ay galbinayaan ay la socdaan oo maaragtay maleeshiyaadkii ciidamadii oo macawisleyda iyo ciidankii kaleeto oo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishtii haddii ay ku dhaqaaqaan waxa waaye waa si sahla ayaa ceelbuur lagu gaari karaa. dhowr jeer in la qabtay ayaa laga soo baxay. marka waxa waaye waa dhiirigelin madaxweynaha sababtuu u taga meeshaas inuu ku dhiirigeliyo oo dhab ay ka tahay madaxweynaha in iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan cadowgan daashaday oo dilaaga in meel la saaro oo laga saaro dalka laga saaro. waa dhibaato badan ay 15 sano ay ku hayeen dadka Soomaaliyeed. Korneel Macow ayaa dhinaca kala sheegay in Al-Shabaab sida looga bartay aanay dagaal toos ah la geli doonin ciidamada dawladda isla markaana ay banayn doonaan deegaanada ay iminka ku sugan yihiin balse goobahaasi markay ciidamadu gacanta ku dhigaan kadib ay macquul tahay in weeraro rogaal celisa ay ku soo qaadaan. waxa waaye shabaab dhaqankaasi waa lagu yaqaanaa inay meesha ka baxaan kadibna ciidanka markii uu muddo uu joogo meesha ay dagaal ay ku soo qaadaan. waxaana ugu wacan wardoonka xoogga dalka Soomaaliyeed waa inuu meesha ka howlgalo niisana waa inay ka howlgasho isla markaas dhaxgal lagu sameeyo penetration lagu sameeyo dadweynaha meesha degan. kolleyba waxa waa shacabka meesha degan dhibaatay ku hayeen. shacab wuxuu ahaa wadanka go'doonka ah oo dhibaato badan ay ku hayeen. shacabkana lagu dhiirigeliyo waxa waaye dawladdiini ayaa idin timid maamulka iyo dawladnimada degaankana waxa waaye idinka ayaa mas-uuliyadda qaadanaya. sababtoo ah waxa waaye guddoomiye ayay lahayd ceelbuur maamulka in loo sameeyo isla markaasna saldhiggii booliiskana meesha ay ka howlgalaan stationkii la furo dadka gargaar loo geeyo. dadka waa dad dhibaataysan meesha haddii dagaal uu ka bilaabana dadaa qahayo oo la qahaaya shabaabka amaba way ka saarayaan magaalada qaar basaasiinna way uga taganaan waa hubaal. marka waxa waa dhiifoonaantana in la xoojiyo isla markaasna lala xisaabtamo sarkaalka meesha madaxda ka ah ama guutooyinkaas hogaaminayo mas-uuliyadda inuu qaato oo heeganka uu ahaado 24 saac iyo sahanka. marka waa laga yaabaa in ay xasisho ceelbuur iyo galhareeri. siyaasiyiinta soo dhoweeyey in madaxweynuhu uu xarun ku meel gaara ka dhigto magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka mid ah Axmed Cabdulaahi oo horey wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug. tegitaanka madaxweynaha
ee uu tegey galmudug caasimadda dhuusamareeb iyo go'aanka ah dagaalka in yacnii lasoo afjaro dhinacaas galmudug iyo hirshabeelle oo deegaanadaas oo dhan laga soo saaro khawaarijta waa wax aad iyo aad u wanaagsan, waa tilaabo aad muhiim u ah, waa tilaabo qof kasta oo wax garanaya ama damiirlig uu soo dhoweynayo. aad iyo aad ayayna u tahay yacnii fursad aad muhiim u ah. waa madaxweynihii koowaad oo dalkan inuu khawaarijta ka sifeeyo si go'aana oo muuqata u qaatay, tilaabooyin ku habboonna qaatay. waa uga mahad celinaynaa madaxweynaha, waana ku taageeraynaa, waana ku garab taaganahay. la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha galmudug axmed shire falagle oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa si kooban VOA uga warramay qaabka uu u socdo diyaargarowga gulufka ka dhanka ururka al-shabaab. diyaargarowga aan ugu jirno in shabaab laga xoreeyo deegaanada ay ka haystaan galmudug iyo hirshabeelle waa mid xooggan, loobana kala harin. hadday noqon lahayd dowladda galmudug iyo shacbigeeda iyo ciidamadeeda, hadday noqon lahayd dowladda federaalka ah. sidaa la socotid shalaytole waxaa yimid magaalada dhuusamareeb wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda, oo ciidamana waa ka soo horreeyeen, ciidamadana waa ka dambayn doonaan. gulufka colaadeed ee la rabo in arrintaasi wax looga qabtana waa mid xooggan. waxaa la rajaynayana waxa weye inaan wakhti badanna ku lumin, si lana yareeyo in dad kale wax gaaraan. dowladda soomaaliya iyo dowladda galmudug labadana waa ka go-an tahay in casdabay la qaada laga dhigo. rajada laga leeyana waxa weeye in kooban in lagu soo afjaro nabaddiidku deegaanada ay ka joogaan galmudug. waana muuqataa cududii iyo midnimadii iyo kartidii looga hortegi lahaa. howlahaasina waa howlo faraha lagu hayo. aan rajaynayna maalmaha soo socda in shacbiga soomaaliya meel oo joogaanba ay ku naaloodaan. deegaano ka tirsan hirshabeelle oo ay weli baaqi ku yihiin al-shabaab ayaa ka mid a meelaha lagu wado in ciidamadu ay wajahaan, waxaase quburada amnigu ay ku talinayaan in marka hore la dhammeeyo khilaafka u dhexeeya maamulka hirshabeelle, sida uu tilmaamayo axmed cabdulaahi kaboole oo siyaasadda iyo amniga ka bartay jaamacadda difaaca ee dalka sweden. sidaad la socoto wejigii koowaad ee dagaalku wuxuu ka bilowday hiiraan, waxaana hormuud u ahaa runtii guddoomiyihii hore gobolka hiiraan mudane cali jayte, oo kabacdina taageero ka helayay dowladda federaalka soomaaliya. halkaasoo militariga aada mooday in ay aad iyo aad runtii ilaa dagaalkiina hadda socdo oo al-shabaab looga guuleystay meelo badan oo ilaa 15 sano 17 sano ay haysteen. nasiib darro khilaafka ka jira hirshabeelle mar kastaba saameyn ayuu ku yeelanayaa dadkii deegaanka iyo howlgalladii uu ku yeelanayaa. marka waqti hadda la joogo waxay la tahay maadaama madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya tuutihii qaatay oo u fariistay dhuusamareeb in wejiga labaad ee la dagaalanka al-shabaab laga soo gabagabeeyo galmudug iyo hirshabeelle, in khilaafka la yareeyo. wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha ku shuqulana ay ka shaqeeyaan sidii loo yaray lahay khilaafaadka ka jira hirshabeelle, si aan loo niyad jebin howlgallada militariga soomaaliya ay sameynaya oo runtii ah howlgalkii ugu weynaay oo ay soomaaliya la gasho al-shabaab. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho. mas-uuliyiinta maamul goboleedka jubbaland ayaa uga digaya kalluumaysatada xilli ay badweynta ka jiraan dabaylaha maansuunka oo kiciyey mawjado waaweyn oo qallibi kara doonyaha yaryar ee kalluumaysiga. sanadkii hore ayaa mas-uuliyiinta jubbaland waxa ay diiwaan geliyeen kalluumaysato ku dhintay badda kadib markii dabayl ay ku dhufatay doonyihii ay wateen. warbixintan waxaa noo soo diray aadan maxamed salaad. digniintani ka soo baxday wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee jubbaland ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dabaylo xooggan ay ku dhufteen xeebaha gobolka jubbada hoose, iyadoona mas-uuliyiinta wasaaradda ay uga digeen dhammaanba in kalluumaysatada ay ka feejignaadaan xilliyada ay kalluumaysanayaan dabaylo xooggan oo ka jira xeebaha gobolka jubbada hoose awgeed. waxaana mas-uuliyiinta ay uga digeen kalluumaysatada iyo sidoo kale kuwa badda ku safra in ay feejignaan dheeraada muujiyaan. agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda jubbaland cabdulaahi cali faarax ayaa sheegay in dadka
kalluumaysatada ahi looga baahan yahay in feejignaan dheeraada ay muujiyaan si ay uga badbaadaan dabaylaha xooggan ee ka jira xeebaha gobolka jubbada hoose oo la ogsoon yahay in sanadkii hore dad ka badan 10 qof ay ku nafwaayeen iyadoona sidoo kale doomihii ugu badnaa ay waxyeello soo gaareen. waxaa lagu jiraa xilligii badxireenka waxayna dhammaanaysaa sidaan rajeynayno hadduu alle idmo October oo sanadkan ah ilaa hadda waxyeelo weyn oo hadda ay keentay sanadkan ma jirto markii la barbar dhigo sanadihii hore oo ay ugu wacan tahay in ay sanadkan ay yaryihiin roobabkii laakiin hase yeeshee waxaa jirto wax soo saarkii kalluunka oo hoos u dhacay doomaha qaarkood oo aan aadi karin badda kuwa waxaa bixi kara motorada waaweyn saaran yahay markii wax soo saarkii kalluunka uu yaraadana waxaa dhacaysa in qiimihii uu kor u kaco laakiin ka wasaarad ahaan waxaan uga digaynaa bulshada kalluumaysatada ah ee badda isticmaasho iyo kuwa kale ee ku safro badda inay digtoonaadaan markay baxayaan jawiga ay qiimeeyaan wasaaradda la soo xiriiraan ayna qaataan hadday ka maarmi waayeen badda inay ama ka kalluumaystaan ama badda isticmaalaan in ay qaataan qalabka badbaadada kaasoo ka caawin kara haddii uu dhib imaado. ka wasaarad ahaan annaka waa ka wacyigelinay waanu u sheegnay qaybtan qusaysa ee kalluumaysatada ah. inkastoo dabaylo xooggan ay ka jiraan xeebaha gobolka jubbada hoose islamar ahaantaana aysan jirin ilaa iyo hadda wax khasaaraha oo soo gaaray dadka kalluumaystada iyo kuwa badda ku safraba ayaa haddana waxa ay saameyn xooggan dabaylahaasi ku yeesheen dadka kalluumaystada ahi ee ka ganacsada kalluunka kuwaasi oo sheegay in saameyn xooggan ay ku yeelatay dabaylahaasi suuqa kalluunka. mar aynu booqannay suuqa kalluunka lagu iibiyo ee magaalada Kismaayo ayaa waxaan kula kulannay qaar ka mid a ganacsada kalluunka kuwaasoo sheegay in sicirka kalluunka uu sare u kacay tan iyo wixii ka dambeeyey bishii Juulaay aynu ka soo gudubnay. waqtiga hadda lagu jiro waxaa la gala xagaay waqti la yiraahdo badiyo marka xiliyada la soo dhaafay xilli barwaaqo ahayd badfurna ahayd haddana waxaan galnay xilli badxiran ah xilligaasoo hadda lagu jiro xiliyadii mataqaanaayo xilligii badii oo kuleelkeedii iyo mawjadihii ay bilaaban lahaayeen oo badxiranka uu bilaaban jiray bishii 7aad 6aad ay bilaaban jirtay adiga 7aad ilaa 8 ilaa 10aad waa xiliyada mataqaanaayo mataqaana badda oo badxiranka dabeelaha ay kacaan. aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo. galab wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. markana laascaanood magaalada laascaanood waxaa lagu doortay shalay hogaanka fulinta ee maamulka SSC Khaatumo. faahfaahinta warkan waxaa inoo soo diray Cabdikariim Olol. doorashada golaha hogaanka sare ee Khaatumo ayaa shalay soo dhammaystirantay gelinkii dambe waxaana doorashadaasi ku guuleystay hogaanka guud Cabdiqaadir Axmed Aw Cali halka ku-xigeenkana uu ku guuleystay Dr. Maxamed Shiine. gudoomiyaha golaha dhexe SSC Khaatumo Jaamac Yaasiin Warsame ayaa ku dhawaaqay natiijada codadka iyo mudanayaashaasi iyaga la doortay. waxaan ku dhawaaqaynaa natiijadii doorashada hogaamiyaha golaha fulinta SSC Khaatumo waxaa ku tartamayay laba mudane Cabdiqaadir Axmed Aw Cali iyo mudane Maxamed Ismaaciil Bulaale. codadku sidan ay u dhaceen mudane Cabdiqaadir Axmed Aw Cali wuxuu helay 30 cod mudane Maxamed Ismaaciil Bulaale wuxuu helay 15 cod. sidaa daraaddeed hogaamiyaha golaha fulinta ee SSC Khaatumo waxaa ku guuleystay mudane Cabdiqaadir Axmed Aw Cali. wareen VOA ayaa waxay weydiisay garyaqaan Maxamed Aadan isdoorashadan iyo hanaanka nidaamkan SSC Khaatumo ee hogaanka sare lagu doortay magaalada Laascaanood. haddaan ii yar faahfaahiyo qaab dhismeedka hogaanka waa sidii nidaamkii hay'adaha dawliga ah ee caadi loo yaqaanay ee golo dhexe baarlamaan u taagan iyo golo fulineed. marka maanta waxaa la dooranayay golo fulineed 3 cisho ka horna ama 4 cisho ka horna waxaa la doortay golihii dhexe oo baarlamaan u taagan. tumkii ugu horreeyey ama waa unugii ugu horreeyey ee maamul baa loodhan karayaa. dadkan laba waxyaabood laba ujeeddo ayay leeyihiin. labadaa ujeeddo ay leeyihiin waxaa ka mid a xoraynta deegaanka iyo dadkan sidii maamul loo gaarsiin lahaa. si maamulkaa loo gaadho xorayntaana loo gaadho waxaa loo baahan yahay waddo iyo wadiiqa lagu gaadho. waddada iyo wadiiqadan waxay u baahan tahay markaa in hay-adihii dawliga iyo kala dambayntii nidaamka ay soo noqoto. su-aashan ah waxa la yidhaaho
isimadii iyo hoggaankani shaqadooda maxay kala noqonaysaa way kala caddahay walaal. waa isimadu doorkii marjaca ahaa ee waxaa la yidhaha sida axad qarabeedka ku qoran SSC Khaatumo waa doorka marjaca mar walba loo noqonayo khilaafaadka ugu waaweyn iyo mushkiladaha ugu waaweyn. Cabdirasaaq Faarax Dhagaweel oo ka mid ah dadka arrimaha bulshada ka shaqeeya ahna gudoomiyaha ururka Dayr ayaa sidoo kale aan wax ka weydiinay doorashadani sida ay u dhacday iyo waxyaabaha laga filan karo hoggaankan cusub ee lagu dooranayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Filashadu waa filasho weyn weeye, ragga tartamayay ma ay kala dhacayn dhammaantood. rag 15 sano ugu dambeysay mid waliba uu ahaa eliidkii deegaankan ee halgamayay ee dagaalka ku jiray buu ahaa, dadaaladana bixinayay naf iyo maalba. Cabdulqaadir Firdhiye ugu dambeyn guuleystay. waxaa Cabdulqaadir Firdhiye ugu weyn laga rajeynay waxa weeye laba qodob oo waaweyn. kow, inuu deegaankan xoreeyo, heshiiskaas uu isaguna raacayo oo fulinaya heshiis. Hogaaminta deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay xagga siyaasadda iyo la hadalka adduunyada waxaa si weyn uga howlanaa isimada dhaqanka deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn. Galad Cabdilaahi Maxamed Guuleed oo ka mid ah isimada dhaqanka ee soo xulay xubnahani 45 ee hoggaanka kala duwan soo doortay ayaanu sidoo kale wax ka weydiinay doorashadii xilliga dambe ka dhacday magaalada Laascaanood. runtii dee kaalintayadu kaalintii wax weeye uun madax dhaqameed ku lahaa, laakiin dee wixii maamul iyo siyaasad iyo hoggaamin iyo maaragtay shaqo ah waxaa u xil saaran hoggaanka la doortay maanta inta uu ka gaarayo waqtiga kumeel gaarka ah ee maaragtay loogu talagalay axad qarameedka ugu qoran oo inay maaragtay daadihiyaan howlaha hadday tahay xagga xoreynta iyo haddii ay tahay xagga nidaamkaba. runtii inagu door inaanu wax ku qabsanno ah kuma lihin, laakiin wax weeye dee doorkii wixii dee masiiri ah oo haddii dee maaragtay xaaladuhu ay dee khatar galaanna kolleyba markaas dee wax weeye marjacun baanu ahaan doonaa, laakiin wixii hawl la qabanayo maamulkaas baa u xil saaran laga bilaabo maanta ama maalintii la dhaariyey 45 Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somalilan ayaa maanta ka hadlay xariga wariye Bushaaro Baanday oo ku xiran magaalada Hargeysa in ka badan 80 cisho. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle. xildhibaanadan ayaa qaarkood waxay tilmaameen inay muhiim tahay in cadaalad ay hesho u wariye Bushaaro Baanday. dhinaca kale xildhibaanada qaarkood ayaa isdul taagay in dhibaatada ugu weyn ee muwaadiniinta xuquuqdoodu ay ku lumaysaa ay tahay xeerarka, gaar ahaana xeerka ciqaabta guud oo ay adeegsadaan garsoorku, kaasi oo xildhibaanada qaarkood ay golaha wakiilada ugu baaqeen in waajibkiisa uu guto islamarkaana la sameeyo xeerarkii bedeli lahaa kaasi. waa kan xildhibaan Barkhad Jaamac Batuun oo ka mid ah golaha wakiilada Somalilan. waxaa doodaydu aan ku salaynaya xarigan ee xabsiyada dadku ku galaya. xildhibaano badan baa si kala duwan uga hadlay arrintan oo ku eedeynaya maxkamadda sare, xeer ilaalinta, madaxweynaha, xukuumadda. dee xarigu rule of law markuu shaqaynayo wuxuu ku shaqeeyaa waa xeer. mushkiladayna haysatay weli alaankaa golaha iyagani fahmi lahayn 2 sano anigu aan ka qaylinay. war xeerkii ciqaabta oo dictator samaystay inagoo dimuqraadiya oo dastuur leh oo doorashooyin leh oo hanaan xisbiyo badan leh oo dunida dimuqraadiyadda galnay ayaa lagu caburinayaa in maxkamaduhu yaala. marka ciqaabtan dadkan ku dhacaysa maaha waxay u kasayso maxkamadda sare iyo waxay maxkamaduhu ka sameeyeen wax garsoorayaashu ay iskood ugu bareerayaan maaha. manaha wax xeer ilaalintu ayadu dadka ciqaab gaar ah uga dhigayso, manaha wax madaxweynuhu ku tagrifanayo, manaha wax cid gaar ah ku tagrifanayso. ciday tahay inay xuquuqda muwaadiniinta ilaalisay wax badan ay qabataa waa golaha iyaga. dhirishana golaha iyaga maal isagana ka dib dhacay golihii golo siyaasi u noqdo, golo arrimihii bulshada taabanaya maaha. marka iminka Bushaaro Baanday cidday u dulman tahay iyo muwaadiniinta kale xabsiyada ku xiran cidday u dulman yihiin waa xeerka ciqaabta. xeerka ciqaabta golaha la keeno wax laga qabto mooyaane wax ka soconaya nidaamka cadaaladeed ee garsoor ma jiro. marka sabab loo dhaliilo hebel iyo ashkhaas anigu ma arkay. war mas'uuliyad baa dalkan inaga saaran baan golaha anigu ka dhexli. mas'uuliyadeedu waxay tahay qof kastoo muwaadin oo xorriyadda laga qaado ciddu u dulman yahay oo u dabran yahay waa xeerka ciqaabta iyo xeerasha gaboobay ee maxkamadaha dhex yaalla ee ingiriiskii laga soo xigtay ee aan noloshana la falgeli karin. meel Somaliland xeerka ciqaabta ay kaga taaliyo dowladnimadeedu maba jirto. marka waa tira malaha 4 jeer waa markii shanaad ee golaha kaga dhaxlay. war goluhu yaanu eedan cid kale u duu
xildhibaanadu eedan iyo cid kale xeerkaas baa dulmi dadka ku hayeen hadduu golahani dadkii soo doortay uu turayo wala caafimaadka ha laga hadlo waxbarashada ha laga hadlo xeerarka liita maxkamadaha ayaa laga hadlo marka taa wax laga bedelo ay cidda wax khalada ee xuquuqda ku tumado muwaadiniinta ama garsooraan noqoto ama madaxweynaha noqoto ama wasiiraan noqoto wax laga qaban karaa xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ee ka hadlay xariga Bushaare Bande waxa kamid ah xildhibaan Mustafa Khayraye waxaana uu sheegay in cadaalad darro ay ku dhacday Bushaare Bande waxa uu sheegay in horaantii qabashadeeda iyo xarigeeduba aanu ahayn mid loo maray sifa sharciya sida uu ku dooday xildhibaanku marka waxaanu ka xunnahay markii hore sharci lagu soo qaban oo waara lagu soo qaban iminkana 8 habeen ayaa lagu hayaa Bushaare eedeedii keenay kar way oo adiga arkay marbeed eeda 10 jeer baa la bedelay mar waxaa la soo eedayo la raaciyay dad aan dalka ba joogin waxaa halka xaqiiqo ka qofka nidaam sharci hadii loo qabto eediisina la hayo maalinta soo qabto maalinta ku xigta waa la eedeyn karaya maxkamaduhuna waxay noqdeen hoy dadka lagu ciqaabay waayo maxkamadda waxay inay u damaanad qaado muwaadinka hayna haddii marka booliisku qof soo eedeeyo ee soo qabto xeeraalintu haddii kiiska hore u keeni weydo waxay ahayd inay dhar leen u qabato tiraahdo war 7 maalmood kuma haynayno qofka muwaadinka laakiin rumaankan joogtada ah ee u xalaalayso waxay u xalaalaysaa ciqaabta qofka weey maxkamadda haddaad maqasho qof baa loo xalaalayna rumaan loo jiray rumaan kala jiro macnihiisi waa la dhalmadalo waxa laga dhigay ciqaab qofka la ciqaabay in loo xalaaleeyo hay'adii ciqaabay marka aad iyo aad baan uga xunnahay anigu arinkay taabanaya waxa weeyeen kol haddii qofka muwaadinka ah marka askari qabto haddii qofka 5 bilood ba lahayn karayo oo maxkamadduna oran karayso iska haysto marba u xalaalayn karayso waxa cadaana inaan kiisina taa loo haynin dhinaca kale waxaan isku daynay inaan la xidhiidhno maxkamadda gobolka Maroodijeex si aan wax uga weydiino xaaladda iyo kiiska wariye Bushaare Bande balse noomay suurtagelin Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa mahadsanid Khadar markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari kulanti wanaagsan dhegaystayaal kowdii bishan Agost ee sanadkan 2023 dowlad goboleedka Puntland ayaa u dabaaldegay sanad guuradii 25aad ee ka soo wareegatay markii la aasaasay oo ku beegnayd kowdii bishii Agost ee sanadkii 1998 muddadaasi rubuc qarniga ah Puntland waxaa soo maamulay 6 madaxweyne oo uu ugu horeeyay Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed uguna dambeeyo madaxweynaha hadda talada haya Siciid Cabdullaahi Dani haddaba sidee ayuu ku bilowday maamulka Puntland maxay ahaayeen caqabadihii ka hor yimid xageese hadda taagan yahay qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah Caasho Geella Diiriye oo ka mid ahayd siyaasiyiintii doorka ka ciyaaray aasaaskii Puntland xilal kala duwanna ka soo qabtay Caasho hadda waxa ay ka tirsan tahay ururada bulshada rayidka ah aad ayaad u mahadsan tahay Caasho Geelle kusoo dhawow mar kale barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA mahadsanid Nuuro bal marka hore noo faahfaahi inta aad kala socotay sidii ay kusoo bilaabatay Puntland bismillahi raxmaan raxiim VOA iyo dadka Soomaaliyeed oo la dhageysanaya baa salaamaya walaal waxa weeyaan markii dagaalkii sokeeye dhacay 91dii dad badan oo muxuu ahaayay ka soo jeeday gobolada waqooyi bari ee Soomaaliya waxa ay gaareen goboladaasna waxay ahayd goobo waagi hore la oran jiray Gaariwa waxay ka samaysteen muxuu ahaay dadaalo iyo horumarin iyo maamulo yaryar oo muxuu ahaay u adeega danahooda markii hore ay amni aada ahaayeen haddana waxa weeyaan amnigii ayaa la sii horumariyey waxaa shaqaysay dekadii Boosaaso oo runtii dad badan oo Soomaaliyeed ama ganacsato ah ama ahaa dad muxuu ahaayay dagaalada ka soo barakaceen oo ku liibaaneen waxaa dheeraatay oo daba dheeraatay xilligii dowladda Soomaaliyeed inay dhisanto ay ahayd oo 8 sano ka soo wareegtay waxaa rajabeel laga gaaray shirarkii lagu yegleelay dowladda Soomaaliyeed oo ka dhici jiray wadamada dariska ah shirkii ugu dambeeyay oo Qaahiro ka dhacay ayaa xilligaas fashilmay kadibna dadka reer Puntland muxuu ahaayay waxgaradkoodii waa isku yimaadeen waxayna goosteen in ay muxuu ahaa loo baahan yahay in la sameeyo maamul muxuu ahaa Soomaalina baadi doona iyo dowlad Soomaaliyeed
reer puntlandna muxuu ururiya muxuu ahaaye horumarkeeda iyo dowladnimadeedana muxuu ahaaye adkeeya. sidaas ayay markaa goosteen. kadibna waxaa jirtay jabhado kale oo jabhadaha soomaaliyeed kamid ahaa oo la oran jiray USP muxuu ahaaye SNDU jabhadahaasuna waxay goosteen iyaguna oo ahaa dadkii deegaanka iyaguna ka dhowaa oo muxuu ahaa ood wadaaga la ahaa in ayaguna muxuu ahaa ka mid noqdaan dadka maamulkaas wax ka dhisanaya. waxaa loo saaray ergooyin shirar badan oo kala duwan oo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay sameeyeen ayaa la sameeyey. waxaana la gooyey in maamulkan maanta la yiraahdo Puntland oo samaysmo oo rubac qarni jirsaday. alxamdulilah loona dabaaldegay 1 Agost 2023. waayahay marka caqabadihii ugu horeeyey ka hor yimid aas-aaskii maamulka maxaa ka mid ahaa? wala horta caqabadihii ka hor yimid iska badnaayeen. horta caqabadaha siyaasi oo sida kuwa maanta jira oo Soomaaliya markasta oo la damcay wax la dhisto ka hor yimaada ma jirinin. dadku hal tareen bay saarnaayeen, dhammaan waxay wada rabeen muxuu ahaaye in maamul la dhisto. muxuu ahaa dhaqaale lama fiirinin oo wixii la haystay ayaa muxuu ahaa la isticmaalayay oo arrimo dhaqaalena problem kama jirinin. waxa kaliya oo problemku ka jiray waxay ahayd wadanka intiisii kale oo dagaalo ka socdeen oo aan maamulle ka jirinin oo maamul hal meel kaliya ka shaqeeya uusan muxuu ahaaye taabagal noqonaynin. waxaa jira xilligaas haddii muxuu ahaa maamulka Puntland wax yar ka dhacaan qof uu wax sameeyo 5 daqiiqo ka bacdi meesha deegaanka ugu sokaysa hadduu galo muxuu ahaa aan cidna soo qabanaynin. marka walwalkaasaa jiray, caqabadaasaa jirtay. laakiin alxamdulilah waxaa jirta caqabad waxaa jira isku duubni badan oo fududaysay in macnaha 5 gobol oo markaas muxuu ahaa Puntland ka koobnayd iyo deegaan la yiraahdo Buuhoodle oo markaa isku yimid inay caqabad la'aan dhisaan. waa jiray isjiid ku saabsan xagga awood qaybsiga, tirada oo yarayd, dadka oo tiro badnaa. muxuu ahaaye markii dambena wixii lagu saleeyay waxay ahayd isku jiid iyo muxuu ahaaye charterkii markaas la sameeyo 3 sano sheegayay in 3 sano ka bacdi loo gudbi doono dimuqraadiyad oo dadka muxuu ahaaye laga tegay ama aan matalaad helin ay matalaad heli doonaan. sidaasaana waxaa lagu dhisay kalsooni iyo rabitaan iyo muxuu ahaaye cun iyo aan kuu cuno. dad badan waxaa jira xubno lahaayeen oo dad kale siiyey, qaar wax laga qaaday, qaar xoogaa muxuu ahaaye dareemay in xoogaa wax ku yar yihiin oo loogu daray. ma jirinin balance, ma jirinin la dhihi karo xaq baa wax lagu qaybshay. waxay ahayd un muujeedaa xalkaas in muxuu ahaa maamulka la dhiso 3 sano ka bacdina ay dhasho dimuqraadiyadaas oo qof kasta oo matalaadiisa helo. waayahay marka adigu waxaa ka mid ahayd dadkii dhanka haweenka hormuudka ka ahaa xog ogaalkana ahaa. marka dowr intee la eg ayaa haweenkiinan Puntland ka ciyaarteen dowlad dhiska maamul goboleedka? walaalow horta aan waxaan ka mid ahaa ergadii markii ugu horreysay gobolka Mudug ka tagtay. kadibna waxaan ka mid noqday 15 muxuu ahaa xubnood oo la dhihi jiray guddiga muxuu ahaa guddiga sare muxuu ahaaye guddoonka ahaa oo shirka maamulayay oo muxuu ahaa la doortay. kadibna muxuu ahaaye waxaan ka mid noqday xildhibaanadii gobolada markay soo dooranayeen gobolka Mudug ka soo baxay. waxaan rabaa inaan caddeeyo haweenku waxay ahaayeen lafdhabar. hoolka shirka lagu dhigayo 54 la oran jiray waxay ahayd meel qoraxa oo aan lahayn har fiican lahayn, xero askareed ah, magaalada aad uga fog. dadka markii ay ka baxaan mararka qaarkood habeenimo ay ka bixi jireen. marka dadkii deegaanka deganaa Garoowe baa oo haweenku u badnaayeen ayaa waxay martigeliyeen dhammaan dadkii shirkaas ku jiray. hadday ahaan lahayn waxay cuni lahaayeen, hadday ahaan lahayn meeshay degi lahaayeen. ha lagu qora xataa oo wixii dowladdu ay bixin kadhay markii ay dhalatay ha bixiso. laakiin dadkii aan hadal ka keenin guriyeyntii iyo muxuu ahaay cuntadii iyo soo dhaweyntii. sidoo kaleeto habka khilaafaadka ayay qayb ka qaadan jireen oo mararka qaarkood haddii shirka hakad yaryar galo waxaa jiray dumar abwaana iyo rag abwaana intaba oo muxuu ahaaye suugaan ku cabiri jiray in muxuu hawsha la fududeeyo. waxaa jiray dumar sidoo kale qayb ka qaatay shirka inta lagu jiro muxuu ahaaye isimada iyo dadkii waaweynaa oo dhan xataa u dhisay hangaro aqal Soomaaliya oo muxuu ahaay ay ku soo dhaweeyaan oo fariistaan oo ku nastaan.
waxay ahaayeen guubaabiyayaal banaanka taagan ayagoon shirka xubno badan ugaga jirinin oo goboladu xubno kookooban ay kusoo dareen haddana dumar badanoo waxaa jira banaanka taagna oo ka sacbinayay oo dhiirigelinayay oo markay xataa xabaar maqlaan ama iyadoo la dahay ama la aamusay halkaas albaabka soo garaaci jiro dhihi jira see wax u socdaan marka waxaan dhihi karaa 100% waxay ahaayeen haweenku dadkii qaybta libaax ka qaatay dhismihii Puntland. waa tahay marka hadda 25 sano ayaa kasoo wareegatay waa qarni waa sanado badan marka dhinac laga fiiriyo marka xagee ay hadda taagan tahay Puntland walaalo horta ruuc qarni waad garanaysaa wax badan runtii muxuu ahaay Soomaali baa leeyahay maamul hore looma aqoonin يعني muxuu ahaay maamul goboleedyada maxay federaaleyntu wadanka waa ku cusub yihiin Puntland waxay meesha ugu horeysay oo maamul sameysanta oo qayb ka qaadatay maamulka dawladda federaalka inuu sameysmo marka iska gaabisana waa jiraan oo badan oo sababay in muxuu ahaayay hore loo socon waayo intii la filayay horumar badan oo la taaban karana waa jiraan oo maanta marka Puntland tigtidiya maalintii la asaasay wax badan baa u dhaxeeyay marka aragtay aeroboor la sameeyo caalami ah habeenii maalinba laga soo dego markaad aragtid dekedaha la sameeyay markaad aragtid laamiyada markaad aragtid dadka Soomaalida ah oo muxuu ahaayay shacabka oo si u maalgashadeen magaalooyinka oo dhan sida yani dadku ay aad ugu dhiiran yihiin haddana waxa weeyaan gaabisyo badan baa jira waxa kamid ahaa 3 sano ka bacdi baa rabin doorasho la qabto lama qaban dhowr 20 sano soo gaartay muxuu ahaay waxa lagu jiray qor isku dhiibkaas in 5 sano mar muxuu ahaa madaxweyne cusub qabto oo runtii alxamdulillah intii lagu soo mooday ah waa iska jireen muxuu ahaay xukunka dee kursigu ma aha wax la isku muxuu ahaay cafiye iyo wax maartay la isku infayd gareeyo ma aha waa iska jireen waxyaabo badan oo caqabadaha mararka qaarkood muxuu ahaay iska horimaadyo dhacay oo iyaga laftirkooda dib u dhac keenay laakiin alxamdulillah waxaan dhihi karnaa 25 ka sano horumar badanna waa la gaaray wax badan oo la filayo gaabisay dimuqraadiyadan hadda bilaabatay ay kamid tahayna waa jirtaa waxa kale oo caqabada iyaduna ahayd oo muxuu ahaa jirana waxay ahayd yani haynta iyo awoodaha inta qaybsigooda iyo dadka muxuu ahaa baahidooda oo kala badan maadaama aysan dhaqaaluhu muxuu ahayn sidii loogu talagalay maadaama aysan jirin dawlado waaweyn oo muxuu ahaa dhaqaalaha bixinaya aysan jirin maadaama muxuu ahaay dagaalo sokeeya xataa ay jireen mararkii muxuu ahaa Puntland intaysan bilaaban ku dhawaadkoodii ay jiraan kuwa hadda muxuu ahaay meelaha buuraha iyo ka socda waxyaabahaas oo dhan ayaga laftirkooda dhaqaalaha hoos bay u dhigeen waxay kamid yihiin caqabadaha yani waxyaabihii la filayay loo gaari waayay dawladda federaalka iyo Puntland iyada laftirkeeda mararka qaarkood aan muxuu ahaayay xiriir wanaagsan ka dhaxaynin iyada laftirkeedu waa caqabad kamid ah waxyaabaha horumar badan xogaa gaabis ka dhigay laakiin alxamdulillah waxaan dhihi karnaa soo far 25 sano waa u qalantaa Puntland muuqaal ahaan marka la fiirshay amni ahaan alxamdulillah waa tahay waxaa soo hadal qaaday dimuqraadiyiinta waxaan ognahay in Puntland ay ku guuleysatay in dhowr iyo 20 degmo loo sameeyo golo deegaan arintaasi maxay kaga dhigan tahay horumarka dowladnimada ee Puntland maxayna gobolada kale ee Soomaaliya kaga dayin karaan walaalo horta waxaan dhihi lahaa waxa weeye horta runtii wax weyn bay nooga dhigan tahay annaga reer Puntland maxaa yeelay waxaan soo aragnay dhowr iyo 20 sano oo qabiil la isku xukumayay qabiilku waad garan kartaa qabiilku ma soo hormariyo qofka muxuu ahaayay waxtarka weyn leh qofka aqoonta iyo muxuu ahaa way aragnimo u leh shaqadaas la gelayo badanaaba waxa qabiilku soo hormariyaa waxa weeye qofka iyagu ay markaas wax la raadinayaan taas marka waxay ragaadisay horumar badan oo la filayay iyo isbedelo badan oo la rabay in la sameeyo marka in dimuqraadiyadda la sameeyo oo qofka codkiisa uu ku nasiibsado wax weyn bay ahayd iyada laftirkeedu barashay u baahan tahay waxa weeyaa dadku ma wada soo wada bixin oo waxa weeyaa maba aaminsaneen dimuqraadiyadda aad umaysan aqoonin boqolkiiba muxuu ahaayay 40 dad aan dhamayn ayaa maxana isdiiwaan geliyay dad badan oo muxuu ahaay dhalinyarada xataa waxaa jira oo tiro badan oo yani boqolkiiba 30 ka badan oo dibadaha qalbiga ay uga jirto oo laga dhaadhiciyay macnaha faraha dimuqraadiyadda hadii aad gashid hadhowta dhoofkaaga bay wax u dhimaysaa waan dimuqraadiyadda gelin baa jira macnaha isdiiwaan gelintii marka turn outku waa yaraa laakiin inta muxuu niyad wanaag baa jiray
33 degmaa lagu guuleystay 3 degmo oo hartay waxay ahayd degmooyin xoogaa khilaaf yar oo adiga soo kala dhex galay ku baaqday laakiin dadweynuhu ay rabitaankooda muxuu aad u rabeen haddana ay diyaar tahay in muxuu ahaay la dhameystiro goboladan hadda iyaguna SSC oo Puntland iyaguna ka tirsanaa oo dagaal iyo halgan ku jiray ayaan degmooyinkoodii laga qaban sababtuna waxa weeye maadaama dadku inay ku jireen in muxuu la daba goosto oo degmooyinkoodii ayagoo halgan iyo hawl ku jirana dib baa loo dhigay oo lama qaban ilaa inta go'aan laga gaarayo marka alxamdulillah يعني waxbay dhaamaan 400,000 500,000 oo qof oo cod bixiyayaal ah inay wax doortaan waxay ka fiican yihiin dad 100 ka yar oo muxuu ahaay odayaal inay wax soo xulaan marka horumar weyn oo la taaban karo oo runtii lagu muxuu ahaayay lagu muxuu ahaayay badiilo fiican la weeye laakiin mar walba khilaaf waa iska jira sababtoo ah waxa weeyaan dad badan oo markii hore waxa jiray dimuqraadiyadda gelin oo aan muxuu ahaay laakiin markay hirgashay daaqaday ka soo galaan iyo albaabay ka soo galaan aan helinin oo laftirkoodu muxuu ahaayay jeclaan lahaa inay muxuu dib loogu celiyo oo wax dib u noqdaan laakiin alxamdulillah aniga sida aan is leeyahay dadka 99% waxay aad ugu faraxsan yihiin in dimuqraadiyaddu hirgasho Soomaaliyana ay ku fido casharna u noqoto muxuu ahaayay dadkuna is doorto waa mahadsantahay iigu jir khadka maama caasho geelle dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo anigoo yahay magacaygu maxamed cabdiraxmaan axmed oo ku nool magaalada boosaaso waxaan weydiinayaa puntland 25 sano jidhaa iyadoo aynan joogin ciidamo shisheeye amnigeeduna isku filan yahay waxaan weydiinayaa dhinaca dhaqaalaha iyo wax walba ma isku filan tahay puntland 25 sano ay jidhay alxamdulillah horta waxa waaye waxaan ku soo moodnay waxa waaye nabad baan ku soo moodnay muxuu ahaayay isku tashi baan ku soo moodnay xilliye waxaa jira Puntland qaybo kamid ah dagaal ka socdeen oo dadka wada degan oo ay mar walba dagaal ka socday sida Galmudug iyo Puntland oo kale dagaaladaas waa joogsadeen waa la xaliyay muddo 2 sano waxa weeyaan horumar iyo nabad iyo isdhexgal iyo muxuu ahaay baa lagu wada jiraa taas waxa weeyaan waxyaabaha qaybaha amniga Puntland dhexdeedana waxa weeyaan iyada laftirkeedu dhibaatooyinka kaga jira duulimaadyada uga yimaada muxuu ahaayay ciidamada muxuu ahaayay ku soo duula oo buuraha jooga mooyaane waxa weeyaan gudaheeda waxa ka dhaca waa wax maartay rabitaanka dadka iyo muxuu ahaayay fikir kala duwanaansho iyo ku saabsan laakiin anigu waxaan isleeyahay Puntland maadaama xilliyo ka adag oo ka dhaqaale yar tahay oo ka horumar yarayd ay amnigeeda sugtay haddana maanta waxaan is leeyahay way sugan kartaa iyadoon ciidamo shisheeye joogin waa tahay dhegeysto kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo haddii aan ku bilaabo magacaygu waa cabdiwahaab garabey kana soo hadlayo magaalada colombos ee gobolka ohio dalka maraykanka waxaan salaamaa martida barnaamijka caasho geelle daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari dhammaan bahda VOA-da iyo dhegeystayaasha meel bay joogaan haddii aan u gudagalo su-aashaydo caasho geelle waxaa tahay qof xogogaal ah wax badan ku soo jiray siyaasadda Puntland iyo tan guud ee Soomaaliya hadda waxaan ognahay inuu jiro khilaaf Puntland iyo dawladda federaalka ah marka muxuu yahay doorka haweenka ee xasilinta khilaafkaas waa mahadsantahay waa mahadsan yahay dhegeystuhu walaal horta doorkan waxa waaye waxa isku hayaan dawladda federaalka iyo dawladda Puntland waxa weeyaan muxuu arrimo siyaasadeed bay isku hayaan arrimo awood qaybsi bay isku hayaan sida dastuurka oo kaleeto waxa jira muxuu ahaay khayraadka sida loo qaybsanayo oo ahayd in laga wada tashado marka maadaama ay u badan yihiin arrimo siyaasi ah horta waxa weeyaan roolka haweenku aad buu u yar yahay haweenku mar walba waxay jecel yihiin nabad waxay jecel yihiin in la heshiiyo waxay jecel yihiin arrimuhu sahlanaadaan siyaasiyiintana haweenku waa ka mid muxuu in wax walba la fududeeyana waanu jecelnahay marka waxa waaye mar walba Puntland dhowr jeerna way cadaysay inay diyaar u tahay in la xaliyo arrimaha muxuu ahaay dawladda federaalka iyo dawladda Puntland maxaa yeelay waa dad Soomaaliyeed waa dawladdeedii weeye Puntland waa hooyadii muxuu ahaay dawlad Soomaaliyeed samaysay iyaduna ixtiraam bay mudan tahay in muxuu ahaa lagu ixtiraamo mas'uuliyadaheeda iyo muxuu ahaayay waajibaadka iyo xuquuqaadkeeda asaasiga ah ay leedahayna waa loo baahan yahay waxaan is leeyahay arrintaas muxuu ahaayay hadda
waxaa lagu kala jiraa muxuu ahay dowladda federaalku waxay ku mashquulsan tahay halgan muxuu ahay dagaal, puntlandna waxay ku mashquulsan tahay arrimihii muxuu ahay doorashooyinka. marka waxaan is leeyahay marka arrimahaas ay dhinac u dhacaan waa khasab in dowladda federaalka iyo dowladda Soomaaliyeed maadaama aysan isfuraynin ay wada fariistaan dhameeyaan arrimaha iyo khilaafaadka siyaasiga ah. anaguna qayb baan ka qaadanaynaa dadka Soomaaliyeed oo dhan, haween iyo rag iyo aqoon-yahan, maxaa yeelay wax hadda la isku haysto oo aan ahayn in la wada fariisto oo waxyaabaha la isku hayo la xaliyo ma jiraan. insha Allah waxaan rajeynayaa inay si ugu dhaqsaha badan iyaduna dhammaan doonto. waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay dhanka dhegeystayaasha su-aalihii ayna soo weydiiyeen inaan wada dhegeysano. magacaygu waa Mawliid Mascade Dhabarey oo jooga degmada Goldogob. aad iyo aad baan idin salaamaya laanta af Soomaaliga ee VOA, gaar ahaan Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Maama Caasho. runtii waxaan weydiin lahaa su-aal aad u kooban. saan wada ogsoonnahay maamulkan Puntland wuxuu gaaray 25 sano, waxaana muuqata runtii tabashooyin aad u fara badan. dad waxaa jira aan u dabaaldegin 1 Agosto oo ahayd maalin weyn. waxaan kaloo arkaynay wasiiro iyo xildhibaano ayaguna dowladda federaalka oo tabasho muujinaya. Maama Caasho, maadaama ay wax badan la socoto arrimahaas, dowladdu seebay u maareynaysaa, maxaase uga degsan? su-aashaasaan weydiin lahaa. waa mahadsantii. walaalow horta waxaa waaye cabasho kasta in la xaliyo anigu waa aaminsanahay. waxaan aaminsanahay in muxuu ahaayey dowladda iyo cid kastoo ka aragti duwan ay wada fariistaan. waxaan aaminsanahay dadka reer Puntland oo 25 sano soo joogay oo muxuu usoo dulqaatay dhibaatooyin badan, caqabado badan soo xaliyay, in muxuu ahaayey dulqaad badan la muujiyo, in muxuu ahaayey cabashada laftirkeeda midda dhow iyo midda dheerba muxuu ahaayey laga jawaabo. waxaan aaminsanahay inta qof reer Puntland ah uu cabasho qabo inaysan xaq ahayn in muxuu ahay loo jawaabi waayo. aniguna waxaan ka mid ahay waayeelka muxuu gobolkan, weliba gobolka muxuu ahay mudug baan ka tirsanahay oo muxuu Goldogob ay ka mid tahay. Goldogob waxa weeyaan waxay ka mid tahay muxuu ahaayey maamulka Puntland dadka wax ka dhisay, jabhaddii SNDU la dhahabay ahayd. haddana waxa weeyaan waa dad deegaanka oo dhan degan, waqooyi bari oo dhan degan, oo aan muxuu ahaayey aan ka imaanin gobollo kale iyo meelo kale oo fog aan ka imaanin. marka shalana way ogaayeen muxuu ahaay wacyigii lagu dhisay Puntland, maantana way ogyihiin xaaladeeda sida ay tahay. waxaan is leeyahay muxuu ahaay wax walba waa la xalin doonaa. wax walba muxuu ahaaye runtaa imaan doonto haddii dimuqraadiyad la sameeyo, qofkasi xuquuqdiisa uu leeyahay heli doonaa. Puntland waa la socdaana waxa weeye waxyaabo badan oo tabashaha jira oo dad badan wax ka tabanaya, laakiin waxaan is leeyahay dulqaadkii aan 25 sano kusoo jirnaa loo baahan yahay. dowladdana waxaan mar walba ka rajeynaynaa waxa waaye dadka cabashadooda iyo inay dhageysato, in ay muxuu ahaay wixii la xaliyi karana la xaliyo. dadka aqoon-yahanka iyo dadka waxgaradka ah oo dhan inay maaragtay mar walba ay number 1 u ahaato Puntlandnimada iyo muxuu ahaayey waayihii dheeraayo lasoo maray iyo baahida dadku qabaan ay u qabaan amni iyo muxuu ahaa walaalnimo iyo isku muxuu ahaayey duubnaan. waa tahay ugu dambeyntii Maama Caasho Geelle, 25 sano ee soo socda haddii uu Rabbi raalli ka noqdo, maxay tiigsanaysaa Puntland? walaalow anigu 25 sano ilaahay qofku gaarsiiyo. anigu waxa weeyaan dadkiyagii xilligaas dowladda dhisay muxuu ahaayey 80% muxuu ahaayey maanta nalama joogaan oo way xijaabteen, ilaahay ha u naxariisto. aniguna dadkaasaan ka mid ahay. anigu kaliya waxaan jeclahay muxuu ahaayey intaan noolahay ilaah idankiis inaan arko Puntland horumarsan, khilaaf la-aan ah, muxuu ahaayey mabaadi'dii loo dhisay oo ay ka mid ahaayeen in dadku qof iyo cod ay wax ku doortaan, in qofkas xaqiisa helo, in la helo, in muxuu ahaayey Soomaali muxuu ahaayey oo dhan la walaal ah, muxuu ahaayey wixii khibrad ay dheertay u gudbiya. waxa aan muxuu ahaayey jeclaan lahaa in muxuu ahaay waxyaabaha cadaaladdu shaqayso. waxaan jeclaan lahaa in muxuu ahaayey waxyaabaha laga soo gudbay oo ay ka mid ahaayeen eexda, musuqmaasuqa, muxuu ahaayey qof jeclaysiga, waxyaabahaas oo dhan laga gudbo, muxuu ahaayey ay shaqayso rabitaanka shacabka iyo dadku waxa ay rabaan, iyo cadaalad iyo horumar iyo walaalnimo iyo isku tanaasul. muxuu ahaay iyadoo Puntland sidaas ayaan jeclaan lahaa in ilaahay igu simo. dee inta ka dambeysana waxaan jeclaan lahaa
sanadba sanadka ka dambeeya in horumarku sii siyaado, in isjacaylku sii siyaado, in dadka muxuu ahaa aqoon-yahanka oo waxbartay oo jaamacadaha maalin walba kasoo baxaya ay noqdaan dadka hormuudka u ah wadanka. dadkao dhanna waxaan jeclaan lahaa mar walba in muxuu ahaay sabrku uu bato. waxaan leenahay isimo soo jireen ah oo marjac u ah Puntland oo wax kasta oo dhaca muxuu ahaay xalinteeda kor muxuu ahaa iyaga mas-uuliyad ka saaran tahay. marka waxaan leeyahay dadku hala wada dabaaldego. rubac qarniga waxa qofna ma laha, shakhsi gaar ma laha, reerana ma laha. waa intii ilaahay na soo gaarsiiyey in aanu muxuu ahaay kusoo caano maalno. marka dadka aan degdegina weli bishaan oo dhan waxaa la yidhahdaa bisha Puntland baa la yidhaahdaa 2023, inkastoo maamulo kale oo iyaguna muxuu ahaay isla Agost muxuu ahaay dhashay ayaguna dabaaldegi doonaan. marka waxaan leeyahay walaalaha aan dabaaldegina, dabaaldega Puntland waa wada leenahay, cid gaar ma laha. berri adaa madaxweyne ka noqonaya, adaa muxuu ahaa majority ka noqon kara, adaa wax walba yeelan kara. marka Puntland waa mid, Puntlandna waxa weeyaan waa midaan wada leenahay, yaan loo fiirin qof iyo siyaasadda taagan. aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. taasi waxay ahayd Marwo Caasho Geelle Diiriye oo ka mid ahayd siyaasiyiintii dowrka ka soo ciyaaray aas-aaskii dowlad goboleedka Puntland, sidoo kalena xilal kala duwan ka soo qabtay. Caasho Geelle oo hadda ah xubin ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ayaa marti igu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii nagala qayb galay. tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sida